kusoo dhawow shabakada Kacab Media haddii ay tahay markii ugu horreysay soo booqatay fadlan subscribe saar si ay kuu soo gaaraan muuqaalada cusub muuqaalkan waxaan ku eegi doonaa maxaad ka taqaanaa lamaanaha qarniga ee Adno iyo Maxamed Saciid Saxaaf wax badan ka ogow lamaanaha dunida gelgelay haddaba warbixintan ayaan ku dul istaagi doonaa xogo ku aad arrimahaasi lamaanaha gelgelay aalada YouTube-ka waxaa la kala yiraahdaa Maxamed Saciid Saxaaf oo ka mid ahaa wariyaashii ka howlgali jiray magaalada caasimadda ee Muqdisho iyo sidoo kale xaaskiisa Adna lamaanahan ayaa waxa lagu tilmaamaa inay yihiin lamaanaha qarniga xilligan isla markaana isticmaala aalada YouTube-ka labada lamaane waa kuwa YouTuber kuwaas oo inta badan ka soo muuqda YouTube-ka la yiraahdo Adna Channel jacaylka kalsoonida isku qabaan labada lamaane ayaa lagu tilmaamay inay yihiin lamaanaha qarniga bulsho badan ayay ku madadaaliyaan YouTube-kooda waana laba lamaane oo YouTuber arrin dad badan soo jiidatay oo xiisaha leh ayaa ah muuqaalo ay ku soo bandhigaan Adno Channel kaasi oo inta badan ay ka soo muuqdaan sidoo kale waxa xilliyada qaar ka soo muuqda halkaasi caruur ay dhaleen kuwaas oo faniya isla markaana bulsho badan ka qosliya arrinta xiisaha leh ayaa ah in YouTuber badan ay ku daysadeen lamaanahan qarniga kuwaas oo inta badan ku daysaday isla markaana koobiyay waxyaabaha ay sameeyaan lamaanaha qarniga Maxamed Saciid Saxaaf iyo sidoo kale Adno Channel YouTuberada qaar ee ragga ayaa inta badan bilaabay in ay ku daysadaan lamaanaha qarniga iyadoo inta badan ay soo fariisiyaan xaasaskooda si ay u koobiyaan Maxamed Saciid Saxaaf iyo sidoo kale Adna waa kuwa dadka inta badan ka qosliya haddii aad mar booqato Adno Channel waad rukumanaysaa sida ay qabaan bulsho badan oo isticmaala baraha bulshada haddaba Kacab Media waxa uu leeyahay lamaanaha qarniga horay u socda